وهذا فيك سنة واشي وهذا هذا قبل جيبه وضع كيسان نقدر هذا كوسو يعمل سوي اوكي ان عراق عبد العلمي رون اهانتي دad qaar codkaaga oo kaliya ay haysteen maanta muuqaalkaaga ayaan ugu daray in codsi fara badan awgiisa عراق عبد العلمي runtii taariikhdiisa waa taariikh aad iyo aad u dheer laakiin inta aan ka soo qaadanayn waa in gaaban السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة يا معلم جيكي وإذن له ميل والبقى جوتان وتسلامنتهين سيدات جدان با عاوة وحا إلا فديها أكتر كوين مانتا أنيغا أهان جيكي أن كتشانا يعني إسلايهي وأكتر كا مانتا ووعد عدنك فيلماتك إن لا ترجمون هذا كان عراق عبد العلمي وأكتر روايتها جيلان عراق عبد العلمي halka aan ka wareysanayo waa sheekiyar official oo ay u bateen dadkii in ay adiga hadalkaaga si fiican dad badan ayaa ay imaadeen waxa lagu wareeriyay oo lagu yiri markasta aaway ninkii Ciraaq ah waxaan balan qaaday in aan soo horfariisiyo sheekiyar official si ay dadkaasi ku weydiinayeen ay ka bogtaan ilaa waa dad aragaaga u ooman اوكي عراق عبد العلمي عاو الى فديا حدقه دنك افلانتا iyo riwaayadaha teeda kale عراق عبد العلمي dadka aniga soo weydiiyay waa faniskeyga maxad leedahay horta السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا لهانتين بأس والبضنا أركيسان إسرائيل وميل بأجوك تبوحان لي هاي مرحبا إيما سيدحد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته maanta waxaan nasiib u yeeshay in macallinkayga JK garabkiisa aan weligayba waan garab fadhiisna waa garab taagnaa in maanta garabkiisa aan fadhiyo baahida shacabka markaasi in sidoo ku haqabtiri lahaa darteed inaan JK maanta isku qabanno macallinkayga marna aabahay ah ilaahay ha dhaafo meel walba u joogo wuxuu ahaa sheekayar official aad u mahadsantiin ugu horreyn waxaad saaraysaan subscribe-ka like iyo comment waa dhankiina aad baad u mahadsantihiin waan ku faraxsanahay caawina halkan fadhiyo oo aan la wadaago macallin JK oraahyo fara badan oraahydana waa noo sii dhimahiin waxaan idin leeyahay meel walba aad joogtaan iyo si walba iyo arkaysaanba aad baad u mahadsantihiin sababtoo dadka heerka i gaarsiiyay maanta waa adinka shacbi ahaan haddii adinka aad ii saacabato milan heerka maanta aan taaganaha ma aanan gaarin macallin JK-na asagana thank you waa ninka garabkayga istaago macallinka keliya garabkayga istaagay marka aan ku foy toosiya soco iyo dhaho هميجي أنا هانا ما تصير سأقول الحمد لله شكرا بالعالمين وأنا ما سنتين. أوكي إن عراق عبد العلمي رون أهانتي دad qaar codkaaga oo kaliya ay haysteen maanta muuqaalkaaga ayaan ugu daray in codsi fara badan awgiisa عراق عبد العلمي runtii taariikhdiisa waa taariikh aad iyo aad u dheer laakiin inta aan ka soo qaadanayn waa in gaaban عراق عبد العلمي waa qof maanta lisleeyahay run ahaantii waa xidiga dhanka ترجميست أفلانتا إن أكتر والبو وحاجرو معنا أكتر بدن لكن قف والبو ليه ها قف بوليه لكن وهل كنين أوكلية عن إسلام هاي ما أنت أكتر كيلو ديبو وكفديا سيدا رامجران إن سيدا مهش بابو سيدا إن all South India تورياش وذرونا هانتي ونينك كلية oo ku fadhiya aan isleeyahay qofka lagu qaadan karo waa intaas عراق عبد العلمي waa qof dhalinyaro ah daayira run ahaantii in alfaqi ayuu nagu soo booqan jiray ma sha Allah maanta heerkan uu maraya intaasina waa sida uu idin sheegay sacabkiina qofka sacabka wuu dhiirigeliyaa ilaa ay wuxuu gaaraa heerka asaga uu hiigsanayo wuu gaaray run ahaantii wuuna idinka mahad celiyay wuxuu idin yiri aniga hadaa idinka ii sacabatu leeyahay maanta san waa sax macallin JK waa sax horta waxaa jirta macallin shakhsiga aniga markaan fog imaanay ay idinku soo booqan jiro kale yani waan imaan jiray 2002 meelaha soo iska imaan jiray yani marba meel akhyaarteed meeshan kula baashaali jiray dan waxay suurto gashay qof walba ilaa meel buu darajada ka bilaabaa sax إلا يرى ميكروفون قبو تليفون كويالو ترين كان كليحو وزير كهبدعو كلا إن هوش أنك بالله أوكي مركي قبت اللي قدح أركي وحا أركي سدح وفوق 70 صح صعب كاسم حوضلا مرك وحوضلا
sacab hore u sii socdo oo sacab kale u yimaado yimaado waxaa ii suurta gashay inaan kasii ambaqaad halkayga oo aan sii socday macalin jeekay adiga aan ku wareysan ku dhow macalin garabkaanaan u baahanahay qaabkaanaan rabaa inaan wax kusii wado sidee kula taatiri istaag soco dhaqaaq anna waan kuu taaganaha ilaahayna wuxuu qadiray maanta heerkan inaan soo istaago waxaad adiga ka shaqaysa shacbiyadeedana ay ka shaqeeyeen waan ugu soo celcelina mar walba maasha allah tabaaraka allah horta run ahaantii ciraaq waa qof professional ah waa qof maanta laisdhihi karo baahida bulshada soomaalida ay qabto uu ka qabtiri karo dhanka filimaadka dhanka riwaayadaha dhanka heesaha run ahaantii ciraaq waxaa macnaha dad qaar ay ka maqan tahay in aad tahay nin abwaan oo heesaha sameeya misna ku luqeeya siiba heesaha westernka ay u yaqaaniin rap heesa badan ayaa soo saartay saan filaayo sheeko yar official waxay noqotay janalada farakutiriska ah ugu sareeya ee wadanka dalka muqdisho aanu joogno oo macalin jeekay leeyahay run ahaantii heesahaagii waxaan kaa codsanaynaa in sida ay tahay aad noo siiso anagana si aan bulshada u gaarsiino maadaama heesaha adiga aad samaysato adigu aad ku luqayso adigu aad laxan ka saarato waan xasuustaa run ahaantii shirkadda famroch mar aan joognay waxaad samaysay hees xalimo gubaad aad u qaadaysid anigana aan kugu daray miro hindi ah sax heesahaas oo kale macnaha in aan bulshada gaarsiino aan walaalahayna faniskayna aan gaarsiino aad ay muhiim nagu tahay waxaan kaa codsanaynaa markaas waa kaa codsanaynaa aan ku dhahayo waxaan ka hadlayaa waxaa waye ama waxaan ku hadlayaa afka dadka aniga igu tixan in macnaha aad noo tixgeliso codsigaasi ciraaq cabdicilmi waa qofka keliya aan isleenahay maanta qofkii raabista ah soo baxo waa qof meel naga saari kara aniga shaksi ahaanteyda waan arkay waa aan maqlay heesaa idinkana dhankiina waad ka arki doontaan macna horta waa saa sheegtay waxaad iga codsanaysa horta ma jiraan waa macalinkayga taa heerkana ninka i gaarsiiya adiga ah shacbiyadana sidoo kale waa shacabkooda macalin diyaar baanu ahay in heesayga muuqaal weli umaana samayn macna waa wada aragtaa umarayna kulli waxay wada saaran yihiin sawiro hal soo keliya oo jawaabta ilkaasaan waxaan u sameeyay muuqaal ahaan يعني هالشيء فريه كبتي وحرام مقال هذا أنا أصلا وحان إذا ساعدي كره وإن في بالك شركية أوفيشال يعني الديار وهنا وهي كان صادنا سادة مسكاي صاحب كي قرب السيو وقت والبا وسجنا يساعد أوكي يقبته يساعده لحن كي حتى هذا وجا قضية مركز قرير هذا ونيوصل له حسانا كديجنا سجنا يقولوا اللغة ما شاء الله هذا يفرق بدين مركز ديار وهم هاي وقت والبنا ديارا وهنا الشعب كي ودين horta Saddam Sky waa wiil dhalinyaro ah jecel bulshada Soomaaliyeed in ay wax qabato run ahaantii dhowr jeer ayaan arkay asagoo dhalinyaro badan dhiirigelinaya Saddam asagana waxaan leenahay boqolkiiba boqol aad ayaad u mahadsantahay maadaama aad tahay qof bini aadanka u run misna hamiga uu hiigsanayo aad ugu horseedaysay Saddam Sky waxaan ku leenahay howshaada sii wad walaal macaan waa mahadsan tahay ciraaq cabdicilmi maadaama heesaaga ay u badan yihiin in maqal oo kaliya sheeko yar official waxaa joogo dad ku gaamuray dhanka kaamirooyinka waxaan kuu ballan qaadaynaa si aan bulshadayna u gaarsiino in heesahaas lagu duubi doono in heesahaas la qaban doono lagu xusi doono magacaaga iyo muuqaaga intaba sheeko yar official ayaa taas ballan qaadaysa anigoo ka hadlaya dhanka sheeko yar official maadaama aniga aan leeyahay laakiin waxaa jira dad anaga aan adeegsano dadkaasna ay had iyo jeer diyaar u yihiin ayagaba codsi ka yimid oo yiri ciraaqaysiisa in aan muuqaal ka dhigna ayaan u baahanahay codsiga maadaama aad naga ogolaatay aad iyo aad ayaad u mahadsantahay sheeko yar official had iyo jeer garabkaaga ayay taagan tahay sidaad adiga macalin jeekay garabkiisa aad u taagan tahay anigana waxaan ballan qaadayaa maanta caawa iyo maanta waa see meel uu kala qaadayo inaan ka mid ahay official groupkaada inaan groupkaada ka mid ahay ayaa ballan qaadaya muuqaal hadday noqoto inaan halkan waqti walba iga heli doontaan hadduu ilaahay subxaana qaadirka ka dhigo meel kale lagu marki horta waad ku mahadsantahay ciraaq aniga waxaan ogahay inaadan ka qayb gelin meel social media ah aad igu cistay aad igu sharaftay sidaad igu cistay igu sharaftay ayaan aniguna leeyahay ilaahay ha kuu cizo ha kuu sharfo bulshadana ha kuu noqdaan hooyo iyo aabba sida hadda adigu aad tahay in ka badan ayaan kuu rajaynayaa taxana ayay noqonayaan macnaha heesaha ciraaq sheekooyinka ciraaq intaba waa qof u soo jeeda
in bulshada Soomaaliya wax la gaarsiiyo anagana diyaar waxaan u nahay sheekay official hadaan u nahay in aan gaarsiino dadkaasi teeda kale sheekay official ma aha wax ma halkan ku ekaanayso waa sii soconaysaa barnaamijyo far badan waxa jira aan ugu tala galay aniga ahaan maanta aan kala hadlayay oo aan rabo page-keena ama official keena ahaan inaan kor ugu sii qaadno si shacbiyadeena iyo dhalinyaradeena baahida ay uga sii baxaan yani kaliya ma aha markii wax la duubayo in klibiya oo aflagaada ah ama bacay kaliya aad subscribe ku siiso waa inaad ku siisaa waxyaabo adiga aad ka faa'iidi karto ama qof muuqiisa kugu cusub yahay ama qof markaasi aad banaynayso inaad aragto lagu tusay waa inaad subscribe ku siin karto waa inaad fikradaada ka soo dhiiba karto waa in aad markaasi dhihi karto alla ilaahay saas ay la qurux badan barnaamij noocaas oo kale aan u baahannahay ma loo samayn karaa muhiimku waa taas dhalinyarada seen bari nagu xiran ee taageerahayga khaasatan aniga macallinkayga xagga asagana gees qofba taageeru leeyahay waxa laga yaabaa macallinkayga boqolkiiba markii boqol qof markii meel isugu timaado in 10 qof aniga taageerto inta kalena asaga ay taageerto yani 90 kale ma sha Allah haddana waa isku wada duubanahay waxaan idin ka codsanayaa oo mar labaad iyo saddexaad idin ka codsanaa page-kan JK kaliya ma laha shakhsi kalena ma laha asxaabta dhan way wada leedahay oo aniga aan kamid ahay ku soo dhawaada malaayiin jeer si share gareeya comment-igana waxa waaye waa xaqiina kan balaalkana noo saar san ugu sii deedeeno okay waa mahadsantihiin halkaad iga daawanaysaan waa kanalka macallin JK sheekayar official waxa idin leeyahay marka baahidiina sida uu Ciraaq Cabdi Cilmi sheegay saaxiibkayga marna wiilkayga waa inoo muhiim orahdiina anaga hadii aan helno horyaan u sii dhaqaaqi karnaa fikradiina hadaan helno sidaas oo kale anaga ma dhahayna anaga oo kaliya ayaan wax wadi karna ma wadi karna nala wada marka nala wadaan oo kale sheekooyinka intaad haysaan noogu soo qora in commentiyasha ama number qaas ah ayaa idin siinayna waqtigaas aad nala soo xiriiri kartaan sheekooyinkiin iyo fikradiina intaba aad ka dhiiban kartaan waad mahadsantihiin waa hadda fiirsana iyo waashiyo hadda waa dhidida hadda gabigayba waad arkaysaan naga daaya hadda ku soo yaaca meesha see weeye okay waa seerabta oo idin leh dhammaantiina ku soo dhawaada waa idin jecelnahay